Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Ethiopia. Channelka subscribe si videoda like gare comment-na xagga hoose ku qor. Dalka Ethiopia ama Federal Democratic Republic of Ethiopia waa dal ku yaala geeska qaaradda Afrika. Waa dalka labaad ee ugu weyn qaaradda Afrika xagga tirada dadweynaha ee ku xiga dalka Nigeria. Caasimadiisu waa magaalada Addis Ababa. Bari waxaa ka xideeya dalka Djibouti iyo dalka Soomaaliya. Waqooyina waxaa ka xideeya dalka Eritrea. Waqooyi galbeedna waxaa ka xideeya dalka Suudaan. Galbeedna waxaa ka xideeya dalka South Sudan. Koonfur galbeedna waxaa ka xideeya dalka Kenya. Cabirka dalka Ethiopia waa 1,104,000 oo kiiloomitir oo square ah. Tirada dadweynaha ku nool dalka Ethiopia sanadkii 2018 wuxuu ahaa 100,009,000. Xagga dadweynaha ku nool dalka Ethiopia qowmiyado fara badan u kala baxaan. Qowmiyadaha ugu caansan dalka Ethiopia waa Oromada, Amxaarada, Soomaalida iyo Tigrayda. Diinta dalka Ethiopia waa Kiristanka. Xagga Kiristanku noqonayaan 66%. waxaa ku soo xiga muslimiinta xagga yihiin muslimiintu 30%. Luqadda rasmiga ee dalka Ethiopia waa Amxaarada. Inkastoo qowmiyadaha ku nool dalka Ethiopia qowmiyad kastaba luqad gaara leedahay, sida qowmiyadda Soomaalida oo af Soomaali ku hadasha, qowmiyadda Oromada oo af Oromo ku hadasha, iyo Tigrayda oo afka Tigrayda ku hadasha. Lacagta dalka Ethiopia laga isticmaalo waxaa loo yaqaanaa bir. Madaxweynaha dalka Ethiopia waa qof dumara, magaceedu waa Sahali Work. Xagga maamulka dowladda Ethiopia gacanta ra'iisul wasaaraha ku jiro. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia magaciisu waa Abiy Ahmed. Dalka Ethiopia waa dalka kaliya tole ee qaaradda Afrika ku yaala aan la gumaysanin. Dhaqaalaha dalka Ethiopia wuxuu ku dhisan yahay beeraha iyo xoolo dhaqatada iyo iibgeynta. Xagga dalka Ethiopia ay tahay dalka kaliya tole qaaradda Afrika beera bunka oo dhoofiya. Dalka Ethiopia waa dalka tobnaad ee adduunka ee xoolaha iibgeeya. Waxyaalaha kale ee dalka Ethiopia dhoofiya waxaa ka mid ah jaadka, dahabka iyo ubaxa. Waxbarashada dalka Ethiopia waa mid dhexaad. Xagga iskuuladu magaalooyinka waaweyn ay ka furan yihiin, hase yeeshee tuulooyinka waxbarashadu ku yar tahay. Caafimaadka dalka Ethiopia aad uma wanaagsana. Xagga labada cudur ee ugu waaweyn dalka Ethiopia ay yihiin TB-da iyo AIDS-ka. Dalka Ethiopia waa dalkii ugu horreeyay ee lagu cabo kafeega ama bunka. Xagga kale, tirada bilaha ee sanadka ku jira dalka Ethiopia waa 13 bilood. Channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan wuxuu kuu rajaynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh.
subscribe si videoga like gare, kumadna xagga hoose ku qor